booliiska magaalada Oslo ee caasimadda waddanka Norway ayaa gacanta ku soo dhigay laba wiil oo da'doodu lagu sheegay in ay tahay 20 kuwa oo lagu soo qabtay darooga iyo in ay ku hubaysnaayeen bustoolad ay rasaasi ka buuxdo. Labadan wiil ee dhalinyarada ah ayaa lagu soo waramayaa in booliiska lagu wargeliyay iyaga oo ku sugan bartamaha magaalada Oslo, kadibna ay booliiska si degdeg ah goobta ku soo gaareen. Ha yeeshee labadii sargaal ee roondadii ugu horeysay ee booliiska ee goobta soo gaartay ayaa isku dayeen in ay gaariga baaraan. Ha yeeshee labadan wiil ayaa ku soo cararay gaariga waxa ayna ku dhaqaajeen iyada oo uu booliisku goobta ku jiro. Taliyaha howlgallada booliiska Ovid Hammervold ayaa ku waramayo in labada wiil ee dhalinyarada ah ay ku sigteen in ay gaarigooda jiirsiyaan booliiskii goobta gaaray. Ha yeeshee aysan booliisku waxba gaarin, wuxuuna ku waramayaa in ay booliisku eryadeen. Ha yeeshee aysan u suurtagelin in ay si xawaare leh ku eryadaan cimilada oo xumeed iyo sidoo kale wadada oo jaam ahayd. Waxa uuna taliya Ovid ku waramayaa in aysan isla markii soo qaban, ha yeeshee roondooyin kale ee booliis ay si degdeg ah ku soo qabteen labada wiil. Markii la joojiyay oo gaariga la baarayna laga dhaxlay bustoolad ay rasaasi ku jirto iyo sidoo kale darooga uu ku sheegay in uu u maleynayo in ay ahayd kokayin. Taliyaha howlgallada booliiska Ovid Hammervold ayaa ku waramaya in labada wiil ee 20 jirada ah la soo qabtay xabsigana loo taxaabay, halkaasoo uu sheegay in wax laga weydiinayo dhacdooyinkii isxiixigay ee ay ka geysteen magaalada Oslo oo ay ugu horeysay in ay booliiska ku sigeen gaarigooda oo ay doonayeen in ay xitaa dardarsiyaan si ay uga baxsadaan, iyo sidoo kale daroogadan laga dhaxlay gaarigooda oo uu sheegay booliisku in aysan kiilaadkooda ilaa iyo hadda caddayn karin. Waxauna intaa ku daray in bastoolada lagu qabtay ay rasaas ku cabaysneed ayna ka buuxday, isagoo sheegay in iyadana wax laga weydiin doono. Labadan wiil ee 20-meeyada ah ayuu taliyaha howlgallada booliiska Ovid Hammervold ku waramayaa in aysan ahayn reer Oslo oo ay ka yimaadeen meel ka baxsan magaalada Oslo. Ha yeeshee waxa uu xaqiijiyay taliyuhu in labaduba ay yihiin muwaadiniin Norweji ah, haddana ay kiis ka fureen baaritaankooduna uu socdo. Arrintan ah dhalinyarada hubaysan ee weliba daroogada ka ganacsada ayaa ku sii badanaya deegaano badan oo dalka Norway ka mid ah, haba ugu badnaatee magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway. Dambiyada dhalinyarada ayaa guud ahaan dalka Norway waxaa laga muujinayaa walaac xooggan maadaama ay si aad ah u sii kordhayaan. Si guud ahaaneed wadamada Scandinavian-ka ayaa ka cabanaya dhalinyarada da'yarka ah ee weliba 18 jirada ka yar ee geysanaya falalka dambiyada, sidoo kalena loo adeegsanayo ka ganacsiga daroogada, maadaama wadamadan uu dhigayo sharcigooda in aan xukunno adag lagu ridi karin dhalinyarada da'doodu ka yartahay 18 jirada. Ha yeeshee culays badan oo jira ayaa waxa uu sababay in waddanka Sweden uu sameeyo xabsiyo loogu talagalay 17 jirada, 15 jirada iyo xitaa 14 jirada. Norway ayaa iyaduna la tacaalayso dhalinyaradan dambiyada kala duwan ee dilka, dhaca, qaraxyada iyo sidoo kale ka ganacsiga daroogada ku faafinayo guud ahaan deegaanada kala duwan ee dalka Norway. Waxa ayna booliiska iyo hay'adaha kala duwan ee amniga iyo dambi baaristuba wadaan arrimo ay kaga hortagayaan dhacdooyinkan isdaba joogga ah ee dhalinyarada da'yarka ah ku lug leeyihiin. Halka warka kiisa ugu door karoon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.